Sharoq Dawaayat waa gabadha ugu xabsiga dheer haweenka maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku xidhan jeelasha Israa'iil. Waxa la qabtay sanadkii 2015 iyada oo lagu eedeeyay isku day dil oo ay kula kacday nin Yahuudi ah oo deganaa dhulka la deegaameeyay. 9 sano oo cimrigeeda kamid ah waxa ay ku jirtaa xabsiyada Israa'iil. Nasiib uma ay helin in ay kamid noqoto maxaabiistii la isweydaarsaday Jimcihii. Waxa ay jirtay kaliya 18 sano markii lagu xidhay xabsiga Daamon ee Haifa ku yaala. toddobaadyo dagaal ah kadib waxa Jimcihii Mareykanka qasasi toos uga dhaqan gashay xabad joojin 4 maalmood ah oo dhinacyadu ay ku heshiiyeen. 39 qof oo haween iyo caruur Falastiiniyiin ah ayaa laga sii daayay xabsiyada Israa'iil, halka Xamaas ay sii daysay 24 maxbuus oo ay ku qabatay weerarkii Oktoobartii la soo dhaafay. Warbixintan waxaynu ku dul istaagi doonaa xog kasta oo muhiim ah oo aad uga baahan tahay si aad wax uga ogaato kuwa ay ahaayeen maxaabiista labada dhinac ay isweydaarsadeen. Maxay ku heshiiyeen dhinacyadu? waa imisa tirada guud ee Falastiiniyiinta ku jira xabsiyada Israa'iil? Ma laga yaabaa in qaar kale dhawaan la sii daayo? iyo xogo muhiim ah ayaa warbixinta tan aan idin kula wadaagi doonaa. Ugu horreyn aynu fiirino qaabka ay dhinacyadu isku dhaafsadeen maxaabiista ay kala haysteen. Aan ku bilowna Xamaas iyada ayaa mar walba sii deynta ku horeynaysa sida uu heshiisku dhigayo. Dhaqdhaqaaqa Xamaas dhinacoodu waxa ay sii daayeen 24 ka mid ah dadka ay ku qabsadeen weerarkii bishii Oktoobar ee la soo dhaafay. 13 ka mid ah maxaabiista Xamaas ay sii daysay waxay u dhasheen Israa'iil. 10 ka mid ah waxay ahaayeen Thailand, halka midka kale oo u dhashay dalka Philippines. Maxaabiista ay Xamaas sii daysay oo lagu wareejiyay hay'adda Laanqeyrta Cas waxa laga saaray Gaza iyada oo loo gudbiyay dhinaca marinka Rafah ee jihada dalka Masar. Hay'addu waxa ay dadka la sii daayay ku wareejisay mas'uuliyiin Masaari ah, halkaasi oo gadaalihii laga saaray dayuurado nooca qumaatiga u kaca ah laguna geeyay cisbitaallo ku yaala Tel Aviv si loo hubiyo caafimaadkooda jireed iyo midka maskaxeed. Dhinaca Israa'iil, 8 fiidnimo ee xilliga maxalliga ah ayaa Israa'iil waxa jeel ku yaala daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto ay ka sii daysay maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ku xidhnaa xabsiyada tirada badan ee Israa'iil. halkaas ay hay'adda Laanqeyrta Cas ay kala wareegtay 39 Falastiiniyiin ah oo isugu jira haween iyo caruur aan qaangaar ahayn. Israa'iil waxa ay diiday in dabaaldegyo loo sameeyo maxaabiista Falastiiniyiinta ee la sii daayay. Maxay dhinacyadu ku heshiiyeen? Inta ay socoto xabad joojinta 4 maalmood ah, dhinacyadu waxa ay u hoggaansameen in ay isweydaarsadaan maxaabiista la kala haysto qaybtood. Xamaas waxa ay ogolaatay in ay sii dayso 50 maxbuus oo iyada u xidhan, halka Israa'iil ay ogolaatay sii deynta 150 maxaabiis Falastiiniyiin ah. Ma laga yaabaa in maxaabiis kale oo Falastiiniyiin ah la sii daayo dhawaanaha soo socda? Israa'iil waxay ogolaatay in xabsiyada ay ka sii dayso 150 qof oo isugu jira haween iyo caruur si ay ugu bedeshaan maxaabiista ay Xamaas ku qabsatay weerarkii 7 bisha Oktoobar. laakiin xilli sii horeysay wasaaradda cadaaladda ee Israa'iil waxa laga soo xigtay in ay suurtagal tahay sii deynta qiyaastii 300 oo maxaabiista Falastiiniyiinta ka mid ah kuwaasi oo Yuhuudda u xidhan. balse ma cadda goorta la sii deyn doono dadkaasi iyo xilliyada ay noqon doonto wejiga labaad ee sii deynta maxaabiistu. inta badan magacyada dadka ku jira liistada maxaabiista Falastiiniyiinta ee la filayo in ay Israa'iil sii deyso waa wiilal ay da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 18 jir. sidaas oo ay tahay waxa jira wiilal ay da'doodu ka yar tahay 14 sano oo haddana maxaabiis ah. badi dadka Falastiiniyiinta ah waxa la xidhay sanadihii 2021 ilaa iyo sanadkan 2023. intee ayaa ay dhan tahay tirada maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku jira jeelasha Israa'iil? maxaabiista Falastiiniyiintu waxay ku xidhan yihiin 19 xabsi oo ku yaala Israa'iil iyo hal xabsi oo ku yaala daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto. ka hor weerarkii 7 bisha Oktoobar, maxaabiista Falastiiniyiintu waxa ay dhammaayeen 5200 oo qof. laakiin maalintaasi kadib Israa'iil waxay qabatay maxaabiis hor leh, waxaana tirada maxaabiista ay taasi ka dhigaysaa 3000 oo qof. dadka la qabtay maalintii weerarka uu dhacayay 37 ka mid ah waa wariyayaal halkaasi ku sugnaa. qaar ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiintu waxay xabsiyada Israa'iil ku xidhnaayeen in ka badan 30 sano. waxa la xidhay ka hor heshiiskii Oslo ee ay kala saxiixdeen Israa'iil iyo maamulka Falastiiniyiinta oo Mareykanku dhexdhexaadinayay. maxay yihiin dacwadaha loo haysto maxaabiista Falastiiniyiinta? kiisaska ugu badan ee loo haysto maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku jira xabsiyada Yuhuudda waxa qayb ka ah dhagax tuur, taageero argagixiso, sharci darro ay ku galeen magaalooyinka Israa'iil iyo in ay ka tirsanaayeen ururo aan la aqoon. jasiiradda Haaretz lagu magacaabo ee Israa'iil ka soo baxda waxa ay daabacday in aan la sii deyn doonin Falastiiniyiinta dilka loo haysto, laakiin isweydaarsigu uu ku ekaan doono dadka caadiga ah oo ay ku jiraan kuwa loo haysto isku dayada dilka.
ugu dambayntiina ugu yaraan 700 oo carruur Falastiiniyiin ah ayaa ku jira jeelasha Israa'iil kuwaasi oo sanad walba la hor keeno maxkamado militari oo aan sharci ahayn sida ay sheegtay hay'adda badbaadada carruurta ee la yiraahdo Save the Children waxa xabsiyada Israa'iil ay kala kulmayaan dhibaatooyin jireed iyo mid maskaxeed iyadoo hay'addu ay tilmaantay in ay ku jiraan dhibaatooyinkaasi qaybtood oo farxumayn loogu geystay